bulshooy bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiifa bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweyni Al-Hilaal Herbal Online waxa kale oo laga daweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kili xanuunka massage toobin waafaqsan sunnada allergiga gastriga iyo daawo ka caawinaysa dhalmalaanta jinka iyo umusabiyaanka xarunta Al-Hilaal Herbal Online waxay ka daaweynaysaa riyooyinka baqdinta leh iyo qarowga ayada uu diyaar kugu yahay specialist Dr. Axmed Cilaaj daawadiisana lagu caafimaaday haddaba waxba yaan hadal kugu daalinine soo booqo xarunta Al-Hilaal Herbal Online oo ku taala xaafadda Isli Second Avenue gaar ahaan qaybta 7 Street wixii faafayntaasi dheer kala xiriir telefoon lambarka eber 7 eber 5 7 afar toddoba hal oo laga heli karo Dr. Axmed Cilaaj والأخوات إن شاء الله تعالى ولي waxaan gudaha ugu jirnaa inaan idin soo gudbino waxtarka daawada iyo daawooyinka ay Al-Hilaal idin diyaarisay ee dadka cudurrada qabo kala gedisan sida loogu daaweeyo maanta waxaan idin hayaa inta badan bulshadeenu Soomaaliyeed aan iraahdo cudurrada inta badan ay ka sheegtaan waa cudurro common oo maaragtay aan ah oo la yaqaano cudurradaasi waxaa ka mid ah cudurkan gaaska la yiraahdo absiirka waa ka mid ah cudurrada masiga la yiraahdana aad bay ugu badan yihiin Soomaalida aad bay ugu badan yihiin haddaba marka barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay cudurkan la yiraahdo gaas H pylori ama ulcer nooc doona ha ahaadee xanuunkan gaaska ee caloosha ku dhaco waxaan u haynaa qofkii qaba xanuunkaas oo muddo la soo daalan dhacay daawooyinkan isbitaaladan aad u isticmaalay daawo herbal ah oo powder ah oo qofka qaato ilaahay idinkiisa ku caafimaadayo dad badanna ay ku caafimaadeen waxaan idin soo gudbinaya maahan wax xaqiiqada ka fog waa wax reality ah daawooyin geedkani waa zactar ayaa la yiraahdaa waxaa lagu daraa daawadan kale ayaa lala isticmaalaa dumar badan horta dumarka maxaa u badiyay cudurkan gaaska la yiraahdo gabdhaha haweenka maxaa u badiyay waa runtii su'aal aan isweydiiyay weeyaan aad bay ugu badan yihiin ragga waxaad moodaa inay kaga badan yihiin cudurkan gaaska la yiraahdo ma aqaan waa yar tahay hadda magaalada Nairobi gabar aan qabin aad bay u yar tahay ragga warroon ma dhif nin ku imaado daawada ka qaad laakiin dumarka aad bay ugu badan yahay cudurka gaaska la yiraahdo sida cudurradan masiga dumarka ugu badan yihiin buu gaaskuna ugu badan yahay waa arrin aan la yaabay weeyaan طبعا ma aqaan cuntada xilliga loo baahnaa miyaysan cunin gaajada isku ilaahay isku fiirsadaan hurdadooda miyaa badan marka طبعا cilad baa jirta cilad ragga aysan la qabin ayaa jirta marka H pylori haduu yahay yaas haduu yahay labadaba waxaan ku haynaa daawo ilaahay idinkiisa aad ku caafimaadaysaan meesha aad rabtanaana idinkugu imaanayso halkaas boostada la idin soo dhigaya si toos idinkugu imaanaysaa meesha joogtaan gurigaaga ka qaadanaysaa sidoo kale waxaan daawo rasmi ah oo lagu daaweeyaan u haynaa cudurkan la yiraahdo baawasiirka loo yaqaan hemorrhoid luqadda qalaad loo yiraahdo haddii ay tahay phase 1 stage 1 stage 2 labadaba daawo fiican oo qofka uga fiicnaanaya ayadana waanu haynaa dhammaan mar walba oo la soo xiriir kana war hay barnaamijyada aan soo gudbino aan bulshada la wadaagno aad baad mahadsantahay billahi tawfiiq bulshooy
bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiif ah bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweyni Al-Hilaal Herbal Online waxa kale oo laga daweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kaliya xanuunka massage toobin waafaqsan sunnada allergiga gastriga iyo daawo ka caawinaysa dhalmalaanta jinka iyo umusabiyaanka xarunta Al-Hilaal Herbal Online waxay ka daaweynaysaa riyooyinka baqdinta leh iyo qarowga ayada uu diyaar kugu yahay specialist Dr. Axmed Cilaad daawadiisana lagu caafimaaday haddaba waxba yaan hadal kugu daalinine soo booqo xarunta Al-Hilaal Herbal Online oo ku taala xaafadda Islii Second Avenue gaar ahaan qaybta 7 Street wixii faafayntaasi dheer kala xiriir telefoon lambarka 7 7 7 7 oo laga heli karo Dr. Axmed Cilaaj